marka waxa kala oo jirta qayrkeen samadu fuulay oo dayuxuu gaadhay oo badaa hoostoodu maray aniguna Soomaali rubuc jaado ama aha cunay baan faankiisa ka seexan lahay hada aqalka hadduu ka soo baxo islaantii jaadka amaahda ku lahayd baa qabsan maqaaxibu kale yahay intuu bakoorad qaatay Iraaq maxaan ka yeelaa maxaad ka yeelaadaa bilaanooli raggan samada kala qaybsaday ee ganaysa waariikhda maramadan sardamaya marbay sabadka jiifeen seef iyo marbay wada lahayd seeqi qaansada hub la samaysta ka ugu yar weey saboolnimada soo wada mutiya suunka gaajada sideena sagaa lagu dhalay ee kama sadweynayn ee subagii cilmiga laga lulay bay sara u heensheen they are readers waxba la akhriyeeyay buugaanta wax laga soo saareeyay ee wali seetadii baa ku xidhan saan madooba afrikaankeenan wali seetadii baa inagu xidhan Soomaaliday talada waa la isasiiyaa ee sibirkan biyuhu hoos u gelin sibibix mooyaan waa tiray qabalam som marmarka biyuhu hoos ma galaan som ya ee seedaada oo leeyatay baad sada ku gaadhaa sharaf iyo mudnaan waxa ku ah waxa aad adigu midigtaada ku xoogsato wuxuu yiri cali mooga allaha u naxariistay gaaladu waxay tiraahdaa there is no difference between lost and poor management shaygu hadduu ka maqan yahay iyo hadduu ku ag yaalo oonad macnihiisa garanaynin waa isku mid shidaal baan leenahay dahab baan leenahay haddaan bilaanool ka nahay mindnowtakum maxaa faa'iidada ku jirta maxay tahay baan isfaani soma shaygu wuxuu fiican imaka dahabka aynu inagu leenahay waan haysanaa deegaankiinu waa dahab baan buuxnaa iyo ka Faransiiska yaala Faransiiska de shelfigu saaran yahay bangigu yaala maalinta dalku yara buu saaradaysta laba hal baa la soo jiidiyo waa laba halayn anigu laakiin waxaan meel waa la ii sheegay inaan leeyahay meel ugu jira ma jiro maalinta bay ilaahay amba fatahaadi amba abaaritimaadana waan dawarsi tagawn that is our difference naaminaga farqiga inoo dhaxeeyo waa ka wuxuu yiri marka wuxuu cali mooga Allah u naxariistay moolis xumadu moolis waa management wuxuu moolis xumadu waa maamul xumo waana meel maran hadaad mayracdana waa murtili haduu maalku wuxuu moolis xumadu waa maamul xumo waana meel maran hadaad mayracdana waa murtili hadaad sii martida waa micna la'aan micna li haduu maalku dhala waa mid ka gudan waa qul yaa ayyuhal kaafiruun tagabay isku soo celceli marka waxaan ka wadaa maamul xumada gabigeedu waa wada xaraan nijaas lagu dalacay indazi yatadabala lakana kar waa wax isku wada dhaxjay marka we have to nacam inaynu ka fikirno horu socod inaynu sameeyne inaynaan inagu isku meeraysan inoo tayno haysano aynu tu kala uga gurno ta kale waxa kale umada Soomaaliyeed ku badan waxaan la yiraahdo self defeating beliefs amba waxay yiraahdaan gaaladu psychological slavery self defeating beliefs amba psychological slavery inaad adigu naftaada gumaysato kow dadka ila yaabi anigu ma karayo ma qof nasiib leh baan ahay ma waqti baa jooga mar hore ay ahaydin la qabtay mar baan isku dayay oo matiiga gaadhay baabacada tima ka tay waxa la yiraahdaa nacam fear of change in isbedelka laftiisa laga baqo marka adana daweynin waxyaabaha cudurrada sidaas hadii aan daweynin waxa la yiraahdaa in order solution ku hadaba muxuu yahay halku muxuu yahay be yourself qofku waa inuu isagu is ahaado hadaad leedahay hebel amba heblaayaan isu ekaysiin adiga naftaada caayamin adaan waxba ahayn baa meesha ku jirta marka waa inuu qofku isagu is ahaado ilaahay baa ku karaameeyay
ilaaha cirka iyo dhulka ku abuuray ee adiga ku abuuray ee inna allaha yarzuqu man yashaa arsaaqadaada qoray isaga gacmaha hoos dhigo isaga wax weydiiso ilaahu adigaan ku tala saartay dheh ibn aadan waxba kuma hayo run baan kuu sheegayay duuda badaan ku nuuradayn maanta halkanaan annaga xukuumadii oo kan qabanay dadda waxaasoo dhan ka bax midigtaadu waxay xoogsataa maydha gaajada be yourself self respect waa inaad naftaada horta xaq dhawrtaa adigu haddii aanad naftaada xaq dhawrin cid kalena xaq dhawri maysa ummadda yaa la raaciyey cid walba nafteedaa la raaciyey inaad naftaada jahannabo ka badbaadiso cid walba nafteedaa la raaciyey marka waxaad dadka uga digi kartaan baad tuuga tuug ku odhan kartaan baad walaalo waxan uu xun yahay odhan kartaa marka aanad adigu ku dhaqmin de tuuga waxaad tuug ku odhan kartaa haddaana tuug ahayn oo qoran laakiin haddaad tuug tahay ma maantay farsamadeenii ay noqotay waa lagu odhanay jawaabu maysa ta kale living with the passion inaad qof samir la noqoto oo dulqaadna noqoto ta kale qof ficil iyo ficil ahaan wax ku muujiya inaad noqoto ayaa loo baahan yahay waxa kale oo jirta midnimada wuxuu yidhi abwaan shube allah u naxariiste meelo horena waan ku soo qaatay wuxuu yidhi hal qura markay tahay bay ummadi horumar gaadhaa ee mar hadduu hiyigu qaybsan yahay waa hunga u joog horumar haddii la rabo waxa ka horeeya nabadda iyo midnimada iyo walaaltinimada in la ilaaliyo in la isxaq dhawro guushaadu ay guushayda noqoto guusha walaalka aad ku faraxdo walaalka oo adiga guushaada ku farxo that is which make a difference nacam kala duwanaanshaha ta keenaysa in waa taas